waxaan ku jiraa casharadeenii taxanaha ahaa ee aan ku baranaynay vocabulary-ga luqadda Ingiriiska ee aan ku kobcinaynay erayada iyo vocabulary-ga markaasi aan rabnay inaan luqadda inoo fududeyso inaan uga hadalno. Waxaan muuqaalkeennii koowaad waxaan isku dayay inaan soo dulmaro si qofka cusub uu fahmo casharadani maxay yihiin. Marka koowaad casharadan erayada ayaan xoogga ku saaraynaa. Kaliya erayo kuma siinayno. Erayadan horta xoogga saaraynaa waa erayo isku mid. Tusaale ahaan waxaan ka bilownay erayada khilaafka tilmaamaya. Eray baan sheegaynaa, waxaan kaloo sheegaynaa erayada kasoo horjeeda iyo maaragtay 4 iyo 5 eray oo kale isaga ma ee la mid ah similar wordska la midka ah ee isku macnaha yihiin si uu u koro vocabulary-ga sentenceyan ku gelinaynaa. Marmarka qaar waxaa macquul ah inaanba kula wadaagno erayada kasoo horjeeda inkastoo taa aynaan isku mashquulinaynin. Erayga ugu horreeya aan qaadanay horta waxaan ka hadlaynay wuxuu ahaa conflict ayuu ahaa khilaafka iyo waxyaabaha erayada ka hadlaya. Erayga ugu horreeya aan qaadanay muxuu ahaa controversy ayuu ahaa waa erayga ugu horreeya oo conflict yani khilaaf ka hadlaya. Eraygan wuxuuna leeyahay waa prolonged public disagreement or heated discussion. Saas waa kan ku macnaynayna lahayn waa dood aad u kululaatay oo maaragtay falcelin leh. Saan horey u sheegayba waxaan geliyey markaasi eraygaas sentenceyan ku geliyey saad u jeedid sentence koowaad ka labaad ka saddexaad ayaan ku geliyey. Intaas haddaan ooga tago waxa kale oo meesha iyaduna ku jirtay eraygaasi controversy oo khilaaf ka hadlaya 4 eray oo la mid ah ayaan iyadana ku siiyey. Erayga ugu horreeya waa maxay? Waa dispute oo khilaaf ka hadlaya. Sidoo kale erayga ku xiga waa debate oo isaguna khilaaf ka hadlaya. Uproar oo khilaaf ka hadlaya. Conflict oo khilaaf ka hadlaya. 4 eray iyo controversy oo isla eraygii lala midka ah isku gee 5 eray ma iga haysaa. Okay, haddaad u baahan tahay dee iyagoo faahfaahsan iyo waxa kani muuqaaladii hore ayaad insha Allah dib u raacaysaa. Erayga xiga waa maxay? Waa altercation. Altercation waa maxay? Waa noisy argument or disagreement. Waa khilaaf dhawaq badan iyo sawaxan uu ku jiro. Eraygaas loo adeegsadaa markaas oo kale khilaaf markuu dhacayay sentencesyadaad aragto ayaan ku geliyey ayagana waad muuqaalka hore dib u raacaysaa haddii Ilaahay yiraahdo. Erayada la midka altercation ayaa iyagana aan ku daraynaa. Erayada la midka waa maxay? Argument waa dood. Waa verbal disagreement often less intense than altercation. Altercationka markii la eego way khilaaf ka hooseeya wey laakiin waa verbal disagreement weeyaan. Marka waa inaad dareemi karaysaa yani difference yar baa u dhexeeya laakiin maca definitionkii baan kusoo raaciyay dee adigii baa akhriyi kara. Quarrel waa maxay? Waa khilaaf wuxuu a heated often personal arguments usually between people who know each other. Waxaa loo isticmaalaa khilaafka inta badan dadka isgaranaya u dhexeeya oo kale ayaa quarrel loo isticmaalaa laakiin waa khilaaf uun. Brawl eraygaas waa maxay? Wuxuuna leeyahay waa rough physical fight usually involving multiple people. Waa dad badan oo islaynaya oo si physical dhibaato isku gaarsiinaya oo kale ayaa loo isticmaalaa inta badan oo dad badan markay yihiin oo kale ayaa loo isticmaalaa. Brawl ayaa loo isticmaalaa. Tusaalayaasha way ku jiraan dee waad akhriyaysaa. Clash eraygaas la mid ah. Clash waa khilaaf. Waa brief but intense conflict. Yani khilaaf weyn ma waa khilaaf yar laakiin saameyn buu leeyahay oo either verbal or physical labadaba uu noqon karaya. Way intaa imsa adiga haysaa. Erayga ugu horreeya muxuu ahaa? Wuxuu ahaa controversy. Controversy isaga kowdhe waxaa kaloo adiga haysaa 4 eray oo la mid ah dispute, debate, uproar, conflict waad iga haysaa. Erayga labaad aan ku siiyey wuxuu halka 5 baad iga haysaa. Altercation waa erayga 6aad markaan ku daro 5tii hore waxaad u geysaa 4 eray isagoo hoos imanaya. Argument, quarrel, brawl, clash 4 isagana u gee 10 eray baad halkaa iga haysaa oo khilaaf ka hadlaya oo mid walba macal definitionkiisa iyo sentencekiisiiba wata. Sidoo kale waxaad ku darsataa 5 eray oo kasoo horjeeda erayga khilaafka tilmaamaya ama altercation ha noqoto ama controversy ha noqoto. 4taana iga qabo weliba 5taa waa agreement, harmony, consensus waa khilaaf. Waxaan ka wada waa israac. Harmony waa maxay? Waa isdhexgal. Unanimity waa israac waa dadkii oo meel isu raaca weeyaan marka waxay isku dhow yihiin. Consensuskaasay isku dhow yihiin. Waayahay conformity haddaan idhahnana waa sax. Marka iyadu waa maxay? Waa isku ekaansho iyo iswaafajin iyo iswaafaqitaan iyo isku soo dhowaansho ayay noqonaysaa. Okay, 10 eray baad iga haysaa
kuwan kasoo horjeeda halkaa iga dhig 10 eray oo khilaaf ka hadlaya oo isku mid adiga haysaa. muuqaalka saddexaad waxaan kaga hadlay strife waa maxay? waa conflicting bay iyaduna tilmaamaysaa muddo dheer weliba xoogaa socday. sentences isagoo ku jira ayaad iga haysaa. sidoo kale waxaan ku siiyey strife maadaama eray khilaafa yahay disagreement erayada lamidka ah iyaguna tilmaamaya disagreement ama khilaafka tilmaamaya. discord eraygan in badan baad arkaysaa newska isagoo la isticmaalayo. discord disagreement or tension often leading to strife. wuxuu inaa markaasi waa un khilaaf sababaya maaragtay khilaaf dhibaato sababaya weeyaan markaasi. waayahay tusaalayaal ma bixin kara hadda 2 mile waxaa lamid ah feud rivalry erayadaasoo dhan waa lamid. xaggan waa 4 weeyaan. okay sorry 1 2 3 4 eray weeyaan. waayahay halkan maxay kaga haysaa? markii hore 10 baad iga haysay strife ku dar 11 afartana ku dar imsaad saa iga haysaa 15 eray ayaad saa ku liqday. haatan waxaan qaadanaynaa marka muuqaalkeenan ku qaadanaynaa muxuu ahaa kalaas maxaan ka wadaa eraygii khilaafka isaguna ka hadlayay ee afraad weeyaan. hadda waxaan halkaa ku 15 eray baa taqaanaa laakiin 15 eray maxaan ku kala qaaday? eraygii u horeeyay ahaa controversy iyo sidoo kale eraygii ka dambeeyey oo ahaa altercation isaguna ahaa iyo eraygii ka dambeeyey strife ahaa. saddexdaa eray unbay hoos imanayeen intoodaasi. laakiin erayga saddexaad afraad antagonize waa khilaaf isaguna erayadii horan bay isku macno yihiin. isagoo sentence ku jiraan ku siinayaa. the senator's crash comments only serve to antagonize the opposing party instead of fostering compromise. wuxuu markaa leeyahay nimankaa senatarada ah commentigoodii adkaa ama sidii adkayd ay commentiga uga bixiyeen tusaalahaan xisbiyadii mucaaradka ay commentiga ka bixinayeen only serve to antagonize. arrintaas waxa keliya u adeegaysa ama sababaysaa in uu khilaaf maaragtay ka dhasho ama khilaaf ay ku sababto inay khilaaf sameeyaan dadka loo yaqaano opposing part. yacni waa dadkii xisbiyadii mucaaradka oo kale. instead of fostering compromise intii ay dhiirigelin lahaayeen ama ay ka qayb qaadan lahaayeen ama ay xoojin lahaayeen inay dadkii maaragtay si wada sinaansho ah markaasi loo wada noolaado kale. tusaale ahaan haddii sentence kalaan ku daro muxuuna leeyahay remarks like that are likely to antagonize voters. wuxuuna leeyahay markaasi khudbadaha noocaas oo kale waxaa un alaaba ay sababaan khilaaf bay ku sababaan dadkan codayayaasha oo kale khilaaf ayay ku sababaan. waa tahay erayada lamidkii waa maxay? waa erayga la yidhahda gerd waa maxay? waa to make a person or an animal react or do something by continuously annoying or upsetting them. waa inaad qof ka xanaajiso ama xayawaanaad ka xanaajiso tusaale ahaan ama aad ku sababto inuu maaragtay reaction sameeyo kale. tusaalaha markaad aragto ayaad ku fahmaysaa. he was simply doing this to get her. wuxuu arrintan keliya u sameynayo inuu iyada ka xanaajiyo ama khilaaf ay samayso. tusaale ahaan marka laga yaaba inaad meelaha ka shaqaynayso qofka laga yaaba in iskaga maaganya ama ninka maamulaha laga yaaba in iskaga maaganya dabeetana waxyaabo kuu kalifaya inaad khilaaf samayso ayuu kugu samaynaya. tusaale ahaan haye insight waa maxay? waa to encourage someone to do or feel something unpleasant or violent. qof inaad ku dhiirigelisid inuu dareemo ama uu sameeyo wax markaasi aanan wax wanaagsan ahayn ama wax aanan farxad lahayn ama wax khilaaf dhalinaya ama dhibaato geysanaya oo kale. waxaan odhan marka the speech incited the crowd to riot. khudbadii waxa ay ku sababtay oo ay ku dhiirigelisay dadkii bulshadii waxay ku dhiirigelisay inay mudaharaad sameeyaan. yani khudbadaas dadka xanaaqeen oo kale dabeetana khilaaf baa ka dhashay oo kale. waayahay fake news can incite panic among the public. waxaan leeyahay markaasi wararka been abuurkii waxay bulshada ku dhiirigelin karayaan ama ay ku sababi karayaan xanuun ayaga u dhexeeya. xanuun maxaa looga jeeda? khilaaf iyaga u dhexeeya ayay ku sababi karaysaa. waa tahay ereyga u dambeeya waa maxay? ereyga u dambeeyay irritate waa maxay? to make someone angry or annoyed. waa isla macnihii uun inaad qofka xanaajiso
ama shay inuu qof ka xanaajiyo oo kale. The scratch tag on his shirt maradiisa bartii ku taallay oo kale irritated him all day. Maalinkiisii dhannaa ayay ka xumaysay. Maalinkiisii dhannaa bay ka xanaajisay. Saas oo kale. Maalinkiisii dhannaa ayay ka xanaajisay. Her constant harming began to irritate her coworkers. Wuxuu leeyahay markaasi qunuunaceedii badnaa ayaa wuxuu ku sababay in uu maaragtay ka xanaajiyo dadkii la shaqaynayay inuu ka xanaajiyo oo ay ka xanaaqaan qofkan de qunuunaciisa iyo hadalkiisa mar walba hoos ka socda. Muuqaalka xiga intaan ku kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo. Waxaan rajeynayaa inaad dhalinyaro badan gaarsiin doontaan. Aad baad u mahadsantihiin. Dad badan baa muuqaalka la gareeya, dad badan baa daawada marka loo eego sida maaragtay aan dad ka filaynay sida yihiin. Aad baad u mahadsantihiin intiina nala joogtay casharada ku xidhan. Intiina kale hadda nagu cusub waxaan rajeynayaa inaad casharadan ka faa'iidaysan doontaan. Marar badan baa meesha soo gelin doonaa. Casharo badan oo taxana ah ayaa socon doona. Erayada conflictiga waxaa inooga dhiman muuqaal, 2 muuqaal, 3 hadday u badan yihiin. Dabeetana waxaan u gudbi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo erayo kale oo cusub sector kale ka hadlaya. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaad aad wax badan ka faa'iidi doontaan. Ninka raba sector ganacsiga erayo ku saabsan, ninka raba sectorka maaragtay politicalka erayo ku saabsan, ka dhaqaalaha midkii raba erayo ku saabsan, ka siyaasadda raba qofkii raba inuu ku saabsan, yacni qof walba educationka hadday noqoto waxyaabahan kale organizationada iyo non-government organizationska hadday noqoto dhan walba waan soo koobi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Halkan aan kugula wadaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaad naga heli doontaa erayga definitionkiisa, erayga oo sentence ku jira, erayada la midka ah, erayadaas oo sentence ku jira, erayada laftooda definitionkooda intaba waad naga helaysaa. Waxaa intaa ku dheer inaad naga helaysid maaragtay sourcekaan isticmaalayno, resourcekaan isticmaalayno aad naga helaysid. Waan ku siinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo powerpointgaan isticmaalayo. Haddii aad markaasi u baahato aad baad mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad dad badan sii gaarsiin doontaan. Intaan muuqaalka dambe ku kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo.